maanta galigii dambe soo gaaray garoonka caalamiga ee diyaaradaha ee Djibouti diyaaradii siday meydadkii ama shuhadadii iyagu ku geeriyooday weerarkii bahalnimo ee kooxda shabaab ay ku soo qaaday magaalada Boolaburde ka tirsan gobolka Hiiraan ee dalka Soomaaliya. haddaba meydadkaasi oo iyagu 6 shuhada ahaa ayaa iyagu geeriyooday iyagoo gudanaya waajibkooga qarannimo ee nabadeynta dalkaasi Soomaaliya. haddaba sargaal sare oo ka tirsan Amisom ayaa isagoo gacanta kaga riday Jenaraal Cali Xasan kusimaha taliyaha sare ee ciidamada qalabka sida dhambaal tacsiya oo uga siday ciidamadaasi Amisom. waxaa haddaba u joogay garoonkaasi caalamiga ee diyaaradaha markii laga soo dejinayay meydadka shuhadadaasi madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele oo isagoo ah hogaamiyaha sare ee ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Djibouti afka lagu yiraahdo chef supreme de l'armée. ra'iisul wasaaraha dalka mudane Cabdulqaadir Kaamil Mohamed, wasiirka gaashaandhigga mudane Xasan Daraar Hufane iyo qoysaskii dadkoogii ay ku geeriyoodeen weerarkaasi. kadibna Captain Rachid ayaa halkaasi soo ka akhriyay magacadii adjudant chef Meyrane Youssouf Hufane, promis au grade de sous-lieutenant à titre posthume. Le deuxième cercueil qui suit, sergent Idriss Dirane Chire, promis au grade de sergent-chef à titre posthume. Vous avez ensuite caporal-chef Abdullahi Abanerige, promis à titre posthume au grade de sergent. Ce soldat a été tué dans la ville de Beledweyne 3 jours avant les autres défunts, dans l'aérodrome de Beledweyne. Vous avez ensuite caporal-chef Mahdi Barkhat Afase, promu également à titre posthume au grade de sergent. Caporal Ali Ahaou Humed, promu à titre posthume au grade de sergent. Deuxième classe Yassine Jama' Dabar, promu à titre posthume au grade de sergent également. Monsieur le Président, nous nous associons à la douleur des familles ici présentes, à la tristesse de leurs épouses et à l'amertume de leurs enfants. waxaa haddaba uu sheegay Captain Rachid inuu isagu si kulul ay ula wadaagayaan geeridaasi naxadinta leh qoysaskii iyo qaraabadii dadkaasi ay kaga geeriyoodeen weerarkaasi bahalnimada ah ee lagu soo qaaday magaaladaasi Boolaburde ee ciidankani iyo askartan iyo ka tirsadeen oo ka tirsanaa ciidamada jamhuuriyadda Djibouti. taasi oo aanu gudbinayno ayuu yiri tacsi tiiraayay qoyskii iyo qaraabadii ay ka baxeen. kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele ayaa ugu dalay galoomo iyo bilado sharaf shuhadadaasi iyagu geeriyooday iyagoo gudanaya waajibkoogii qarannimo. avec étoile d'argent. Nous vous décernons l'étoile de vaillance. madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geele waxa uu talay shuhadadaasi galoomo iyo sidoo kale biladaha loo yaqaan bilada geesinimada ayaa uu ugu talay shuhadadaasi iyagu geeriyooday iyagoo gudanaya waajibkooga qarannimo ee nabadeynta dalkaasi Soomaaliya. Nous faisons sergent et nous vous décernons la médaille de vaillance avec étoile de bronze. Décernons l'étoile, la médaille de vaillance avec étoile de bronze. Service rendu à la nation, nous vous faisons sergent et nous vous décernons la médaille de vaillance avec étoile de bronze. فالأحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
صدق الله العظيم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وأنصانا. اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان. اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأغسلهم بالماء الثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما تنقى الثوب الأبيض من الدنس. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك. kadib madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Margeele kadib markii uu talay ama kor u qaaday darajooyinkii shuhaadadaasi oo galmo ugu talay iyo bilada geesinimada. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti waxa uu u diray dhambaal tacsiya qoysaskii iyo qaraabadii ay ka baxeen shuhaadadaasi lixda ah, isagoo u rajeynaya inuu Ilaahay ka waraabiyo jannooyinkiisa. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geesiyaasheenii argagixisadu ay dagaalkeedii ku dhintay ayaga oo howlgal qaran fulinaya, iyaga oo cadowga Soomaaliya ku habsaday ee argagixisada ku haya, ayaga oo ka caabinaya ayay qadarkii u yimiday si geesinimo ah, iyagoo qoryahoogiisi tabay isku daafaceen. maantana waa shuhada ayaan leenahay. ilaahayna waxaan ka baryeennaa inuu jannadii gaarsiiyo oo uu la xidhiidhsiiyo sidiiqiinta iyo nebiyiinta iyo shuhadada inuu la xidhiidhsiiyo ayaan ilaahay ka baryeynaa. ciidankeenna muhiimadda uu ku jiro adduunka oo dhan baa og. waxa uu halkaa u joogayna waxa weeyaan mujtamaca duwaliga ee dunida dhammaantii waxa uu heelan yahay in laga kiciyo ama laga dhiciyo argagixisada geeska Afrika, khaasatan shacbiga Soomaaliyeed ee walaalahanahay. nafteenna inaanu hurnayna waajib baan u aragnaa, inaan ku talagalnana naftu ilaahay maalinta uu ugu talagalay saacadna ma aakhirto, saacadna ma qadinto. laakiin dhimashatii ugu qurux badnaydii waxa weeyaan kolka aad shahaadada ku dhimato. waxa aan dadkii eheladiisa asxaabtoodii eheladoodii inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo, in waxa ay ilaahay annaga naga dhigo in aan bedeli kari mayna in aanan waxba kala hadhin wixii aan la qabani karno, wixii adduunka ku hadhay. ciidanka qalabka sida inta jabhadda ku jirta ee cadowga argagixisada ka caabinaysa ummadda Soomaaliyeed, inta tagi doonta intaba in aan ku hareereyno taageeradeenna, ku hareereyno ducadeenna, ku hareereyno waxsiinteeda, ku hareereyno calankeenna iyo walaalnimadeenna inaan ku hareereyno. waxa aan leenahay Allah u naxariisto raggeenaas, innagana ilaahay samir iyo iimaan ha idin ka siiyo. Assalaamu calaykum wa rahmatullah.